dhaqso ah loo meel mariyo iyadoo aan loo taagay waa mahadsantihiin salaam calaykum salaan kadib mudane gudoomiye marka hore waxaan jeclaan lahaa inaan bogaadino dhammaanteen wasiiradda shaqada fiican ay qabatay gaar ahaan dhinaca kursigii xuquuqul insaanka ee dowladda Soomaaliya ay ku lahayd UN inay ku yeelato oo waliba 170 cod ay hesho iyadoo 190 ay codeynaysay waa runtii wax aad iyo aad loogu amaani karo waa kaaga mahadcelinaynaa dhinaca kalena waxaan kaaga mahadcelinaynaa hawsha aad soo qabatay iyo hiddiso sharciyeedkan aad keentay oo ahaa runtii mid aad iyo aad loogu baahnaa anigu su'aal uma badni laakiin waxaan rabnaa inaan comment isku darno meelaha aan isleenahay waa lagama maarmaan maadaama wasaaradda iyo guddigu ay dib ugu laaban doonaan mudane wasiir waxaan anigu soo jeedin lahaa dadka naafada ah in lagu daro qodob dhahaya dhammaan xafiisyada dowladda laga bilaabo xafiiska madaxweynaha prime ministerka golaha wasiirada wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan xafiis kasta oo dowladeed in ugu yaraan 2 qof oo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ay shaqaale ka yihiin shuruud in lagaga dhigo oo lagu daro qodobkaas sharcigu inuu jideeyo oo lagu daro qodob odhanaya xafiis kasta waxaa waajib ku ah ugu yaraan 2 qof inay noqoto ka mid noqoto shaqaalahaas dhinaca kalena lagu daro qodob kale oo odhanaya dadka shaqada soo doonta marka dad ay shaqo soo codsadaan dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dadka kale dadka baahiyaha gaarka qaba in midnaanta koowaad la siiyo oo discrimination aan lagu sameyn qodobkaasna in lagu daro ciddii hawshaas dib ugu dhaaban doonta inay qodobada ku soo darto qodobka labaad waxaan soo jeedin lahaa in lagu daro qodob sharciyeed oo dhahaya ciddii ku xadgudubta ciddii sharcigan ku xadgudubta maxaa lagu qaadaya in uu ku jiro qodobkaas oo ah xadgudub ciddii ku samaysa oo ay caddaato inay discrimination ku samaysay ama xuquuq ku samaysay dadkaas in iyadana lagu daro dhammaan hay-adaha dowladda oo dhan oo baarlamaanku ka mid yahay meel kastana ay ka muuqdaan dad shaqaale ah oo dadka baahiyaha gaarka qaba oo leebaladoodu kala duwan yihiin wasiir ilaa iyo shaqaalaha kale dowladda prime minister madaxweyne wuxuu kaloo doona ha noqdo laakiin xafiisyada hadda inoo dhisan inay ka mid noqdaan ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa qodobkaas ah in lagu daro ciqaab ah ciddii ku xadgudubta waxa lagu sameynaya sababta inta sharci la soo saaro hadhowna sharciga sida la rabo loogu dhaqmo oo dad kale oo baahiyaha gaarka aan qabinba inuu u adeega laga yaabo sharcigu taa in laga taxadaro waxaan kaloo soo jeedinayaa saaxiibada hore ku raacsanaya in sharcigan la dedejiyo maxaan ku idhaahdaa aan waqti badan lala sii sugin sababtoo ah dad badan oo dhibaataysan ayaa u baahan inay dhibaatada ka baxaan waa mahadsantihin gudoomiye xildhibaanada sharafta leh wasiirka iyo tiimkeeda intaba waan salaamayaa shaqaalaha iyo saxafiyiinta iyo dhammaantood ciidamada waxaan marka hore la qabaa mahadcelinta xildhibaanada kale wasaaradda loo soo jeediyey iyo wasiirka sharcigan iyo soo diyaarintiisa iyo maaragtay runtii in maantana la hor keenayo aad bay ay u wanaagsan tahay waana dee sharci dadka inta badan xildhibaanada ah ay ka warhayeen in la sameynayay ama ay la socdeen ama dhinaca dadka naafada ah kala socdaan ama dhinaca wasaaradda kala socdeen laakiin sharci la sugaayo waa ficlan aniga waxaan rabay inaan si dhowr qodob inaan muujiyo aan sharciga intaan fiirfiiriyey aan ka arkay qodobka koowaad ee aan rabay inaan muujiyo waxa weeyaan horta waa madax bannaanida waxaa la yidhi waa inuu noqdaa guddi hay-addani hay-ad madax bannaan waa inay noqotaa baa la yidhi madax bannaanida marka laga hadlaayana madax bannaanidii dee dhinacyo badan ay taabanaysaa budgetkeeda iyo miisaaniyaddeeda taabanaysaa awooddeeda sharciga ah la siiyey ayay taabanaysaa shaqaalaheeday taabanaysaa waxyaabo badan oo madax bannaanidii inay jirto keenaysaa ayaa jira sida lagu caddeeyo qodobka koowaadna hay-addu waa hay-ad madax bannaan marka maadaama ay madax bannaan tahay waxaan dood ka qabaa qodobo ku qoran sharciga dhexdiisa oo ay u muuqata inaanay madax bannaanayn oo ay kow ka tahay magacaabista
qaabka lagu magacaabayo horta yaraha waxaad moodaa haddii inkastoo dee si degdeg ah aan ku fiirinay oo sharciga hadda uu naloo qaybiyey laakiin inta aan ka fiiriyey qaab dhismeedka hay-adda qaabka lagu magacaabayo qodobka tobnaad baan u malaynayaa inuu yahay farqadiisa labaad gudoomiye ku-xigeenka waxaa magacaabaya ayaa la yidhi wasiirka markuu soo gudbiyey ka bacdi dekreeto ra-iisul wasaaraha ay ku soo baxaysaa baa la yidhi qodob kalena waxaa ku qoran guddoonka sare inuu madaxweynuhu dekreeto ku soo saarayo marka dee ma laba dekreetaa soo baxaysa meeshaas haddii aynan aniga ishaydu khalad ugu dhicin sidaa inay u qorantaan u malaynayaa dhinac guddoomiyaha ayuu magacaabayaa baa la yidhi haddana guddoomiyaha madaxweynaha magacaabayaa la yidhi mise guddoonka marka meeshaas iswaafajinay rabtaa ma ra-iisul wasaaraha loo jeedaa inuu magacaabayo mise madaxweynaha loo jeedaa inuu ku soo saarayo dekreetada midda kasii muhiimsan aniga aan u arkana in lagu saxa waxaa weeyaan inaan hay-addan madaxdeeda madaxweynena magacaabin ra-iisul wasaarena magacaabin xukuumad iyo madaxweyne midna inaynan magacaabin aan qabaa ee loo dhaafo hay-adda naafadu iyada inay doorato madaxdeeda hay-addaani waa hay-ad ka bedelan hay-adaha kaleeto ee maaragtay dowladda loo dhiso ee madaxa bannaan sibay uga bedelan tahay dad gaara oo howlahooda iyo duruuftooda ay gaar tahay baa iska leh marka dadkaasi ay iyagu baahidooda uga turjumaan waa inay dhexdooda iska xulaan dadka munaasabka u ah dadka danahooda ka shaqaynaya isla markaana waa inay iyagu access u leeyihiin qofku marka uu ku xumaado inuu iska wareejin karo laakiin haddaan awooddii siino wasaaraddii ama awooddii aan siino ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii waxa weeyaan xilalka kale ee siyaasadeed ay la mid noqonaysaa mana hurayso inay siyaasadoodo haddana way ka muuqataa haddii dee la qaybinayo madaxweyne guddoomiye ku-xigeenkana ra-iisul wasaaraha magacaabaya la leeyahay guddoomiyahana madaxweynaha magacaabaya la leeyahay hadda laftirkeeday ka muuqataa inay siyaasadaysan tahay marka waxay dhaawac u geynaysaa ay u keenaysaa hay-addan dhismaheeda ay dhaawac u keenaysaa si ay u madax bannaanaato hay-addan shaqadeeda ha loo madax banneeyo maamulkeeda iyo hoggaankeedana dhexdooda inay ka soo xushaan waa in loo dhaafaa taa horta waa aragtida koobaad ee dhinacaas ku saabsan waxaan dood ka qabaa iyadana meeshan la leeyahay qodobka waxaan u malaynayaa inuu yahay qodobka labaad farqadiisa saddexaad waxaa ku qoran xarafkiisa b wuxuu sheegayaa inay noqdaan 5 xubnood oo guddigu inay ka yimaadaan 3 xubnood oo ka imaanaysa maxaa la yiraahdaa naafada iyo 2 xubnood oo banaanka ka imaanaysa waxaa ka muuqata sharciga in naafada lagu yasaayo weli hada sharci ma noqon kara sax inta uu sidaa u turjumayo waa in laga saaraa qof aan naafayn maxay ka qabanayaan naafada akademiyada ku jira hadduu mid lugaha la ku jiro mid indhalaha ku jira hadduu mid dhagaal ku jiro mid lugaha ku jira cid walba laga helayaa guddigoodana si dhammaystiran oo dhexdooda uga dhismi karaa waa aan banaanka uga keenaya shaqaalaha xirfadda leh ay u baahan tahay hay'adani banaanka laga keeno bilcagsi sida ku qoran maxaa la yiraahdaa qodobka koobaad aan idhaahdo qodobka 11aad farqadiisa saddexaad ayaa waxaa lagu qoray shaqaalaha hay-addu waa inuu naafo ahaada la yiri meeshaana waxaan qabaa bilcagsi shaqaalaha hay-adda inay xirfad ku xushaan dadkooda agaasimayaalka iyo dadka hay-adaha mas-uuliyaadka ka qabanaya shaqooyinka hoose in xirfad lagu soo xulo oo meeshaas ay ka yimaadaan dadka shaqadaas iskale laakiin madaxda iyo guddiga sare ee hay-addaani ay yeelanayso baahidooda dadka turjumi kara oo arrintooda mas-uul ka noqon kara waa inaysan noqonin dad lagu soo dhex darsaday 5 xubnood marka waa in loo madax banneeyaa waana in laga tiraa 2 xubnood oo kale aniga aragtidayda marka si guud sharcigan waan dhiiri gelinayaa waa sharci wanaagsan laakiin madax bannaanida aan ka hadlaynahay madax bannaani inta meel lagu qoro haddana qodobada kaleete sharciga dhinaca looga dhagan yahay aanay noqonin hay-addan ayagaa yaqaanaan dadkaani baahidooda ayagaa yaqaanaan duruuftooda gaarka ah aniga ma fahmi jirin laftiga marka aan raacayo waay u hadlaa ma fahmi jirin nin baa ifahamsiiyey indhool anoo maalin la socda ma aanan aqoon muxuuniyo flor hebel aad maraysaa iyo muxuu kuu dhahayaa sheekadan maxaa laga wadaa anaaba ujeedaa yacni ma dareensanayn ilaa qofkani uga yidhi anuu ila hadlaya marka sharciga dadka loo sameynaya iyagaa garanaya duruuftooda gaarka ah ha loo dhaafo waad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullah waa tahay daawadayaal waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii baarlamaanka oo aad kala socoteen goobjoog intaan barnaamijkan xew kulmi doono waxaan kaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo